Asalaamu calaykum. Maxaa ka cusub maanta iyo caalamka? Mareykanka oo mar kale weerar adag ku qaaday Xuutiyiinta dalka Yemen iyo Xamaas oo ku gacan saartay xabajoojin ay Israa'iil u soo bandhigtay. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay duqeymo culus oo Mareykanku ka fuliyey dekedda shidaalka Ra'iisa ee dalka Yemen. Duqeymaha cirka ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof, halka 100 kale ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa sababay khasaaro naf iyo maalba leh, iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka ku waxyeeloobay. Warbaahinta Al-Jazeera ee ku hadasha afka kooxda Xuutiyiinta ayaa xaqiijisay in duqeymaha ay dhaceen, inkastoo aysan si rasmi ah u shaacin khasaaraha gaaray dagaalamayaashooda. Waxay si gaar ah u muujisay cabashada laga qabo weerarada Mareykanka ee ku soo noqnoqday saldhigyada muhiimka ah ee dalka. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka CENTCOM ayaa sheegay in weeraradaasi ay la beegsadeen ilaha dhaqaale ee kooxda Xuutiyiinta, gaar ahaan kuwa la xiriira dakhligooda saliidda, si loo wiiqo awooddooda dagaal iyo dhaqaalaha ay ku taageeraan weerarada. Bayaan kooban oo lagu daabacay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in ujeeddadu tahay in la wiiqo awoodda dhaqaale ee Xuutiyiinta, kuwaasoo sii xumeynaya nolosha shacabka ay maamulaan. Bayaankaas ayaa sidoo kale muujiyey in weeraradu yihiin tillaabo la isku dayayo in lagu xakameeyo saameynta Xuutiyiinta ee gobolka. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka weli kama aysan fal celin wararka sheegaya tirada sii kordhaysa ee dhimashada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay duqeymaha. Weeraradan ayaa loo arkaa kuwo la mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Mareykanku ka geystay gudaha Yemen tan iyo markii kooxda Xuutiyiinta ay bilaabeen weerarada ay ku beegsadaan maraakiibta xiriirka la leh Israa'iil. iyo Gaza, Xamaas oo ku gacan saartay xabajoojin ay Israa'iil u soo bandhigtay ay ku dooneysay in lagu sii daayo in ka badan 10 lahaystayaal ah. Xamaas ayaa si rasmi ah u diiday xabajoojintii ugu dambeysay ee Israa'iil u soo bandhigtay, waxayna sheegtay inay diyaar u tahay inay si degdeg ah uga wada xaajoodaan heshiis dhigaya in la sii daayo dhammaan lahaystayaasha haray si loo soo afjaro dagaalka iyo sii deynta maxaabiista Falastiiniyiinta ah. Madaxa wadaxaajoodka Xamaas Khaliil Al-Haya ayaa muuqaal soo bandhigay wuxuu ku sheegay in aysan aqbali doonin heshiisyo qabyo ah oo u adeegayo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo ajandihiisa siyaasadeed. 59 lahaystayaal ah ayaa weli ku jira gacanta Xamaas. 24 ka mid ah ayaa waxaa la rumaysan yahay inay nool yihiin.